Shiicadu waxaa lagu qiyaasaa tiradooda 320 milyan oo qof, waxaana laga helaa oo aad ugu badan yihiin goobaha sawirka idinkaga muuqda ee midabka cagaaran ee rasiinka ah marsan. Waxayna aad ugu badan yihiin Iiraan, Ciraaq iyo Azerbaijan, ayagoona sidoo kale laga helo Suuriya, Yemen iyo Bahrayn. Shiicadu waxay leedahay kooxo kala duwan oo hal caqiido ku mideysnayn, waxaana jiraan kuwa aad ugu dhow Sunniyiinta iyo kuwa aad uga fog, sida kooxda Shiicada ee Iiraan xukunta ee ah Isna Cashiriyada ama Imaamiyadda ama Jacfariyadda ah, waana kuwa ugu badan uguna awoodda badan Shiicada. Waxaana kooxdan kuwa khilaafsan ka mid ah Saydiya, Ismaaciiliya iyo Kiisniya. Farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya ayaa ah mabda'a la yiraahdo imaamah. Haddaba waa maxay imaamah? Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa nabigii ugu dambeeyay oo Alla soo diray, dabadiisna uusan soo bixin mid kale oo loo waxyoodo. Sidaasi waa sida ay Sunniyiintu aaminsan yihiin, laakiin Shiicadu waxay aaminsan yihiin Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam marka uu geeriyooday kadib in ay jiraan imaamyo aan nebiyo ahayn, laakiin uu Alla u wakiishay diinta. Imaamyadan ayayna sheegaan inay yihiin kuwa ka soo farcamay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, kuwa aan dembi ka dhicin iyo kuwa loo waxyoodo, waana sababta aysan Shiicadu ugu ekeen oo keliya axaadiista. Waa ay isku khilaafsan yihiin Shiicada arrinkan iyo muhiimadiisa. Qaar baa imaamadda ku sheega tiir ka mid ah tiirarka Islaamka, qaar baa ku sheega tiir ka mid ah tiirarka iimaanka, qaar kalena waxay ku sheegaan inay tahay mid asaas u ah caqiidada Islaamka. Haddaba maxaa keenay in Shiicadu kooxo u kala qaybsanto? Imaamyada Shiicada ay aaminsan yihiin, gaar ahaan Isna Cashiriyadda, waa 12 imaam uu ugu horeeyo Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Guud ahaan Shiicada iskuma khilaafsana 6 imaam ee ugu horeeya, laakiin khilaafkooda iyo kala qaybsanaantoodu waxay ka bilaabataa imaamka 7aad. Haddaba sababtu maxay tahay? Sida uu caadada ahayd, waxay imaamnimada u aqoonsan jireen marka uu imaamku geeriyoodo wiilkiisa weyn, laakiin waxaa dhacday in imaamka 6aad asigoo geeriyoon in uu wiilkiisa weyn ka hor geeriyoodo. Waxayna markaasi kadib Shiicadu isku khilaaftay cidda noqonaysa imaamka 7aad. Kuma saabsana muuqaalkan ka hadlidda waxa ay daliishadaan iyo xukunkooda, balse wuxuu ku saabsan yahay inaan ogaano Shiicada iyo waxa ay aaminsan yihiin. Haddaba aan u soo daadegno waxay aaminsan yihiin oo aadka uga duwan yihiin Sunniyiinta. Dhammaantoodana kama simano oo isku si uma wada aaminsano. Ugu horeyn waxay rumaysan yihiin in waxyiga Jibriil calayhi salaam uu Alla u soo dhiibay loogu talagalay Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu, laakiin uu Jibriil u leexiyay dhanka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Waxayna sii aaminsan yihiin in Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu qayb ka mid ah diinta uu soo gaarsiiyay dadka, halka qaybta kale uu Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu gaarsiiyay. Waxay aaminsan yihiin a'immadooda inay yihiin kuwa u dhaxeeya Alle iyo addoommadiisa, isla markaana waajib tahay in ayaga loo maro. Xitaa waxay qabaan booqashada qabuuraha a'immadooda in Kacbada oo la booqdo ay ka muhiimsan tahay, iyo sidoo kale booqashada qabriga Xuseen inay la mid tahay booqashada carshiga Alle, ciidda qabrigiisuna daawo u tahay cudur walba. Waxay aaminsan yihiin Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu inuu nool yahay, og yahayna cilmu qaybka, isla markaana awoodo inuu soo nooleeyo qof dhintay. Waxayna yiraahdaan xitaa marka uu cirka onkado, Cali ayaa tasbiixsanaya. Waxay aaminsan yihiin qofka naclada marka uu salaada tukado khulafaa raashidiinta sida Abubakar, Cumar, Cusmaan iyo xaasaskii nebiga sida Caaisha inuu Alle ugu dhowaanayo. Waxay aaminsan yihiin guurka mutcada ama guurka ku raaxaysiga ama kumeel gaarka ah isla markaana leh muddada go'an. Qofkii guurkaasi ku aqalgalaana inuu la mid yahay qof Kacbada soo booqday 70 jeer. Midda yaabka badan oo ay aaminsan yihiin ayaana ah in loo ooyo oo weliba dhiig la isaga keeno xusidda Xuseen, ayagoona sii aaminsan inuu Alla malaa'ig u abuuray ku dul oysa oo keliya qabriga Xuseen. Waxaana xusid mudan inay aaminsan yihiin Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu inuu heshiisiyo marka ay murmaan malaa'igta. Waxay aaminsan yihiin horjoogahooda sida Ayatullaahiga haatan ay ku daba faylaan inuusan gafin, isla markaana go'aankiisu yahay mid mar walba saxan oo biyo kama dhibcaan ah. Waxay kaloo rumaysan yihiin qofka marka qabriga la dhigo su'aasha koowaad ee la weydiinayo inay tahay jacaylka uu u qabo ahlu beytka. Waxay qabaan kolka dhagax tuurka xajka la samaynayo inay dhagaxda ay tuurayaan u niyeystaan inay ku tuurayaan Abubakar iyo Cumar radiyallahu anhuma. Waxayna sii aaminsan yihiin qofka dhinta asigoo beri ka ah Abubakar, Cumar iyo Cusmaan inuu jannada galayo. Waxay aaminsan yihiin wax la dhaho tuqya oo ah in qofka uu qarsado shiicanimadiisa isla markaana uu dadka dhinac ka raaco.
weliba marka uu xajka joogo inuu dadka la tukado, niyeystana inuu imaamka salaada uu yahay sheekh shiicanimada aaminsan. xitaa waxay aaminsan yihiin marka ay xajka joogaan haddii ay la kulmaan salaad janaaso inay ka qayb noqdaan islamarkaana salaada dhexdeeda ku habaaraan meydka sunniga ah ee lagu tukanayo. waxay sheegaan mahdi aan ahayn mahdiga uu sheegay nebigeena sallallahu calayhi wasallam, ayagoo yidhaahda jihaadku wuxuu bilaabanayaa oo uu waajibayaa marka uu mahdigaas yimaado. dhanka kale, qof marka uu soo islaamaya oo ay ashhaadka u qabanayaan waxay ku daraan shahaadateynka Cali bin Abi Taalib radiyallahu canhu.